kiiska gabadhii yareed ee Sabriin Ilaahay ha u naxariistee waxyaabo fara badan oo ku saluugsanahay baan ku arkay anigu oo ku jira ila mid miyaatiin waxyaalaha ma la yaabantiin walaalayaalo waxyaabaha aan la yaabanahay aniga waxa ka koow ah xariga cunugta yarta Ilaahay ha u naxariistee ku xidhan xarigaas xarig qof dumar ah xidhay uma eka xataa qof shacbi xarig uu xidhay uma eka la islaantan hodan la leeyahay baan xariga xidhin wixii xaqiiqo jira Ilaahay baa og laakiin aniga waxay ila tahay islaantaas inayna xariga xidhin xataa odagan waayeelkii uuna xidhin ciddii xarigan xidhay baaritaan bay u baahan tahay in la soo ogaado gabadha yarta 2 bilood baa meesha lagu ciqaabay waxaa yani fahmaysaa markaad cunugta yarta sheekadeeda sii dhageysatid 2 bilood ee cunugta meesha joogtayba inay xidhnayd oo ciqaabtu ku socotay ilaa hadii kale way baxsan lahayd ilmo yar oo 10 sano jira baxsanaya 10 jir meel hadii lagu ciqaabo lama maalin 3 maalin marka la ciqaabo jaanis markuu helo maalinka kale wuu baxsanaya 2 biloodba marka waxa halka ka cad cunugta inay ciqaabtu ku socotay gurigan midda kale sagaalka sakatuura bini aadanka guryahooda hal sakatuura leeyihiin kaamirooyinka ku xidhan yihiin ma la baaro waxa ku jira lafa bini aadan in laga soo heli lahaa baan aaminsanahay aan gurigan hadii si fiican loo baaro gabadhan cunugta yarta markay ciqaabaysay 2 bilood marba marxalad bay ciqaabtu maraysay marxalad walba ay maraysana way duubaysay cidii ay u duubaysay iyo cidii ay u direysayna ma si fiican loo baaro guriga waxa lagu leeyahay 13 caruur joogta 13 ruux meelay joogto 2 bilood qof saa loogu cadaabayo wax badan bay og yihiin 13 ruux ee meesha joogay wixii 5 sano ka weyn oo dhan ma la baaro iyagana su'aalo la weydiiyo qaraabadii iyo dariskii iyo dadkii area-da ka dhawaayay oo dhan ma si fiican loo soo baaro odayga gaarigiisa iyo gurigana ma si fiican loo baaro baaritaan rasmi ah marka la sameeyo kadib la rabay maxkamadda in la furo midda kale waxyaabaha aan la yaabanahay waxa ka mid ah socdaba anigu sidaan dareemayo dambi baarayaal khibrad iyo aqoon in kiiskan loo dhiibo u baahan si qoto dheer loo baaro sababtoo ah waxa koobaadeen anigu ka shakisanahay aadka u rabi lahaa inaan ogaana waxay tahay cidii xarigan xidhay xarigan la islaantan hodan wala 20 hodan oo kale haday u yimaadaan ma xidhi karaan dad dumar xarigaas oo kale xataa odagan waayeelkii inuu xidhin baan aaminsanahay ani xaqiiqada Ilaahay baa ogay xarigan cidii xidhay si fiican ha loo soo baaro cunugtan qofkiisaan u xidhay ha la soo baaro si fiican ha loo soo ogaado please wallahi kiiskan anigu waxaan dareemayaa si fiican oo cadaalad inuu u soconin